meeshan ku soo bandhiga hal abuurkooda waliba dadka xirfadda gacanta intay barteen iyo walaasheen Janay workshop oo runtii qurba joogteena ah muddo dheerna runtii igu qaadatay inaan deegaanka keeno dadka waxay ahayd aan soo tashkiiliyay oo aan ka dhaadhiciyo dhahay deegaanka imow dadkaaga imow aqoonta ma sha Allah kaliya dadka xirfad ma barto runtii waxay leedahay kale saddex ganacsi bay isku dhex wadaa shirkad oo waxay leedahay nature growth la dhaho ee alaab production ay sameeysaa dabiici ah waxay kala sameeysaa Janay workshop ay dadka ku tababarto ee dad xirfad gabdhaha dhalinyarada ay xirfad barto ay maanta ku shaqeystaan walaasheen Caasha Cuud baa kamid ahayd dadka maanta ka faa'iiday iyadoo ciid ah saaka dhan waynaga maqnayd anaga laakiin u joogna meesha inay ku soo shaqeysato ee xiniyo dad gabdhihii u soo mariso oo ay wax ka shaqeysato runtii guushaas waxa way xirfadaas walaasheen ay bartay bay ku gaartay waynu ku sii shaqeysan doontaa xirfado badan ay bixisaa marka yaani runtii dadka in xirfad la barana waa muhiim sababtoo ah qofka marka xirfad la baro qof xirfad leh ma gaajooda ani aaminsanahay hadduu qofka xirfad leeyahay xirfadiisu ku shaqeysanaya laakiin haddaad jaamacad ka baxday ilaahay ma master degree laba master degree haysatid haddaadan shaqahayni waxa laga yaabaa inaad gaajootid laakiin qofka xirfadda leh gacantiisa wax ku maali karo marna inuu gaajiyo isaga isma yaqaanaan marka iyadana runtii waa u mahadnaqaya inay usoo yani u timid inay dadkeeda wax barto cilmiga iyo aqoonta ee iyada la timid inay dadka sii galinayso aad baan ugu mahadnaqayaa waxay kaloo sameeysaa holistic therapy meel la dhahay leedahay dadka way toobtaa waxay u sameeysaa maxaa la dhahaa masaajadii dadka oo maaragtay physical therapy-ga u baahan runtii iyadana shaqo kalena oo culusna way noo haysaa marka Allah ku barakeeyo businesska Allah ku barakeeyo aqliga Allah ku barakeeyo reeqardhood waxa la rabaa dad waxaan arkay hadda markii la soo bandhigay runtii bandhig ganacsiyeedkan waxyaabaha laga faa'iiday waxa kamid ahaa in dadkii la soo dhigay talentigooda iyo aqoontooda iyo xirfadooda la banaanka la soo dhigay dadkii ummadii way yaabtay waxay leeyihiin oo kaalay waxaan dadkan qardhamay ku nool yihiin dadkan waxaan sameeyay qardhamay oo qardhad dad waxa jooga ma sha Allah talented oo wax yaqaan hadda iyaga ma waxaan sameeyay yaani hadal waxay noqotay wax la hal yaani la hadal haayo marka sharaf bay anagana noo tahay hadaan qardhoodnahay inay dad talentigaas leh ama aqoontaas leh ama xirfadaas leh ama iyaga gacantooda wax ku sameeynayo sida walaasheen Elise Arts gabdho badan oo waxa jiro anaga waxaan fursad siinay kaliya shirkado waaweyn fursad ma siininin qof carwo u furantahay kaliya fursad ma siininin bandhig ganacsiyeedkan iyo showcase inuu ahaa yaani runtii inay dadka is soo bandhigaan muhiimadda ugu weyn wuxuu ahaa in lagu ogaado xirfadaada la arko waxa aad inaad deegaanka joogto lagu ogaado dad badan aan ogeyn inay yaani dad noocaas ay jiraan online ay ku ganacsadaan marka dadkaas xataa waxay u baahan yihiin annaga guuleysano dukaamada leh oo carwada leh iyo shirkadaheena waaweyn oo nala yaqaano ina iyagana tabantaabino oo soo saarno oo aan tusino dadkan war dad xirfad la joogo ma sha Allah oo isgarab qabano runtii ganacsatada halkan waxaan leeyahay groupkan wuxuu noo ahaan doonaa group aan ku midownay oo aan aqoonteena isku xirfadeena xataa isdhaafsiisan karno isgarab gali karno keena kale khibradii uu bartay dad waxa jiray dhowr sano ku jira xirfadda walaal rasmi shoob oo kale waqti dheer ay ka sheekeynaysaa ma sha Allah aniga hadda 8 sano sanadka sagaalada noo socdo ganacsi aan wadano marka waan yaani dadka hadda soo kacayo oo ganacsiga ku haminayo dhalinyarada rabta inaysan tahriibinin inaan tabantaabino oo wax u sheegno oo wadooyinka anaga aan ku soo jabnay aysan ayaga marinin oo aan talooyin siino waa muhiim marka waxaan idin leeyahay aad ba u mahadsantihiin Allah idin sharfo Allah idin karaameeyo inaad soo ajiibteen ba sharaf iyo karaamo runtii noo ah qofka ra'yigu keeni kara laakiin ra'yiga hadii lagu raaco oo lala qaato waa guusha ugu weyn waxa waa inaan ra'yigan idin keenay fikirka idin keenay aan la qaadateen ganacsiyada halkan hadda naga maqanana sida Daryeel Bank oo kale waa bangi kaliya oo runtii nagala qayb qaatay amaan buu mudan yahay isagana magaalada bangiga waaweyn aa joogo laakiin Daryeel Bank waxay garatay inay qayb ka noqoto horumarka sababtoo ah shirkadaha iyo maxaa la dhahaa iyo bangiyada magaalada ma ahan kaliya inay u arkaan ayaga fursadooda kaliya ay arkaan anaga maxaan ka qabsan karnaa bulshada kaale lacagtaada noo keen ganacsatada ay lacagta dhigtaan laakiin ay u arkaan walaani maxaan deegaan ku celin karaa horumar ileen tan hadda horumar waaye dhaqaalaha degmaday qayb ka qaadanaysa inay dadka imaadaan bulshadina ay hesho qiimo dhimis 50% aan sameeynay hadda caawa anaga alaab bilaasha wax gado hal shay ama laba shay dooro ka rabtidan ku siinayna yaani waa wax horumar waa iyadana iyo aragti cusub waaye inuu ganacsadaha xataa uu wax bixiyo uu yaani wax quuro bulshadiisa wax u quuro maadaama maalin walba wax laga gadanayo adna aan noqotid mid bulshadiisa wax ku celiyo marka insha Allah annaga waxaan la jecelnahay qardho inay caalamka la jaan qaado meel sare aan geyno
dadkeeda aan dib ugu soo celinno aragtiyo cusub iyo fikrado cusub